السلام عليكم وليغا باسكيل ما كحيسay mana isku dayda inaad kaxaysid xilliga ugu horeeya aad baaskiilka baranaysid waxa aad ku mashquulaysaa badeelihiisa badeelaha waa meesha lagu hala saaro ee laga kaxeeyo qof walba baaskiilka baranaya qof ayaa ku riixa si uu u barto riixitaasi waxay sahlaysaa qofkaasi inuusan dhan u dhicin marka aad ugu horeysa ee aad baranaysid waxa aad ku mashquulaysaa badeelaha indhahaagu waxa ay fiirinayaan badeelaha mar walba oo badeelaha fiirinaysiin culeyskaagu wuxuu fuulayaa qofka kugu riixayo sidaas si la mid ah qof walba oo wax idinka dhaxeeya wuxuu uu doono qofkaasi ha noqdo xiriir ha noqdo family ha noqdo asxaab ha noqdo ganacsi ha noqdo hadii aad ku mashquulshay ficilkiisa dabeecadiisa iyo dhaqankiisa isma fahmaysaan qofka baaskiilka kugu riixaya mar walba oo kugu riixayo wuxuu ku leeyahay hortaada fiiri waxa uu ku leeyahay waxa ay tahay si aad u dhaqaajisid laakiin adigu markii kugu horeyso way waxa ifleedahay baaskiilka waxa laga kaxeeyaa waa halkaan mana dhaqaaqaysid sida si lamid ah hadaad qofka ku mashquulaysid isma fahmaysaan mar walba waxa idinka dhex taagnaanaya buuq isfahan la'aan waxa jirta dadku marka isbarataan ama waxa idinka dhaxeeyaan hadii aad aaminaadaadii iyo kalsoonidaadii iyo dabeecadaadii dhammaan aad ku milantid oo aad sida isku dhex gashaan waxa imaanaysa qofku markii dhibaatooyin aad u tiro badan aad kala kulantid inaad ka dhex bixi weydid waayo waqtigaagii dabeecadaadii iyo kalsoonidaadii dhammaan baa wada siisay waxa adkaanaysa inaad ka bixi weydid mar walba aad istiraada ka dhaxbax waxa laga yaabaa inuu kugu dhago mar walba aad istiraada ka dhaxbax waxa laga yaabaa inaad soo xasuusatid waxyaabihii idin soo dhaxmaray hadaba qof walba oo markaas wax idinka dhaxeeyo hadii aad sida u wada socotaan adiguna aad aamintid inaad shakhsi gooni ah tahay asigana uu aamino inuu shakhsi gooni uu yahay oo aad isfeer socotaan waxa imaanaysa hadaad isfahmi weydaan oo laba wado oo wadadaanu dan ku tahay asiguna wadadaan dan u tahay ay idinku timaado inaad tartiibtaada wadadaada qaadi kartid idinka oo isku calool xumaanin idinka oo dhibaato idin dhex marin laakiin hadii aad saas tihiin qofku wuxuu aaminayaa inuu adigu ku leeyahay waayo maalin walba waxa laga yaabaa inaad tiraadid maalintii dabeecadaadu ay isbedesho ama aad kala kulantid wax aad u xun waxa imaanaysa in adigu aad u dulqaado weydid waxa laga yaabaa mar walba wax walba uu kaaga soo baahdo in aad dhehaysid oo aad isdhehayso waa qof kugu weyn ee iskaga naxariiso aad isdhehayso waa qof kugu weyn har ku dhibaataynin laakiin maalintii aad u dulqaado weysid oo maya uu kala kulmo waxa imaanaysa in dhibaatooyin aad u diro badan aad kala kulmayso qofkii waxa imaanaysa in qofka aad ka lug bixi weydid qof walba waxa wanaagsan inuu kugu qiimeeyo shakhsiyadaada iyo qofka aad tahay adiguna aad ku qiimeyso qofka uu yahay mar walba waa maskaxdaada wax ku dhibaya aad dareentid qofku markaas wax ku dhibaya u sheeg si aad isku fahantaan laakiin hadaad tiraado qofku waa isbedelaya ee iskaga aamus wixii way kugu tira badanayaan marka ay kugu tira bataana waxa imaanayso inaad aad u xanaaqdid qofkuna uu qaadi waayo xanaaqan aad xanaaqaysid ilaa weligiis muus arag adoo xanaaqayo isfahankuna wuxuu noqonayaa in uu sii liito inaad isfahan weydaan buuqu idinku bato isfahanku waa shay aad u muhiim ah fahankuna marka hore waxa uu ku yimaadaa shakhsiyadaada hadii adigu aadan isku daynin qofkaani waxa aad tahay inuu fahmo oo aad isku dayaysid asiga inaad fahantid mar walba aad ku dadaalaysid inaad fahantid maalinta aad fahantid asigu shaqadiisii wuu gabay dadaal uma gelayo inuu adigu ku fahmo marka aad isku daydid inuu asigu ku fahmane waxa laga yaabaa inay wax cusub ku noqoto uu u qaado waayo adiguna aad isdhehaysid muxuu ku fahmi laayahay waana sababta keenaysa in labada qof ay kala hari waayaan ama ay xumaato ku kala haraan isfahanku waa shay muhiim ah hadii aad video ka heshay asxaabtaada la wadaag waa saaxiibka Shaahid Bisaani meel walba dunida ka joogtid Allah kugu xifdiyo assalaamu calaykum